أولا هرتا أد بدو mahadsantihiin inaan halkan aad baan u faraxsanahay inaan imaado si aan uga hadlo waxyaabo muhiim ah booqashadayadu waxay ku saabsan tahay shir aan ka galayno sidii dib loogu dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waad ogtiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay lafdhabar u noqon doonaan sugidda amniga dalka iyo ka hortagga cadawga gaar ahaan al-shabaab marka waxa loo baahay in dib la isaga warsado qaabka ugu fiican loo dhisayo ciidankaas structure-kiisa tiradiisa taakuleyntiisa waxyaabo badan marka dalalkii gacanta naga siinayay iyo xukuumadda Soomaaliyeed anigu aan hogaaminayo laakiin wasiirka gaashaandhigu ka mid yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishiisa la shaqeysa ay halkan jooga si arinta looga hadlo isla dhinacaas amniga marka laga hadlo waxa jirta in dhawaan golaha wasiirada oo adiga dabcan aad gudoomiye u tahay ay eriyeen madaxii nabad sugidda sababaha lagu eriyay dad si faahfaahsan uga hadasho runtii horta mar walba isbedel waa u dhacaya sababaha waxay ahayn sababo hawsha qaabka uu qabanayo oo aan marka loo arkaynin in ay caawinayso siyaasadda dawladda oo ah in la helo adeeg xagga nabadgelyada oo degan waxa kamid ahaa dhaqamo xarig la xiray nin xildhibaana waxa kamid ahaa dhaqamo lagula kacay madaxda dawladda oo si toos ah loo weeraray hadal ahaan loogu weeraray marka waxyaabo aad aan ugu habboonayn hogaaminta hay'adda noocaas oo kale ah ayaa keentay in golaha wasiiradu go'aankaas u gaaro sidaas ay ku timi ma jirtaa in ay ku lug leedahay ama dadka qaar kadib tallaabadaasi inay dhalisay isku dhaac ama is-afgarawaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha uma malaynayo kelmadda isku dhac iyo khilaaf iyo waxaad moodaa inay bumbuunis tahay oo xoogaa ka badbadis inay tahay waa dhici kartaa in lagu kala aragti duwan yahay laakiin waa wax aynu ka wada hadalnay oo aynu ka wada hadlayno oo maartay laakiin kulleyba xukuumaddu mas'uuliyaddeedu way gudanaysaa markii hawshaas go'aankaas u dhacay dhawaan Soomaaliya waxa lagu dilay oo diyaaradda Mareykanka uu leeyahay ay ku dileen Axmed Gudane oo aan ognahay inuu ahaa hogaamiyaha al-shabaab arintaasi maxaad ku ogeydeen ma lidin soo ogeysiyay ka hor intaan tallaabada la qaaday ma waan ogeyn hay'adaha naga nabadgelyada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo ciidamada AMISOM iyo qolyahan Mareykanka naga gacan siiyay arinta waa la wada shaqeynayay in iyadoo aan dad kale dib loo geysan marka la helo qaab madaxda hogaaminaysa qaraxyada iyo mashaakilaadka Soomaaliya ka dhacay iyo xasiloon darada Soomaaliya ka dhacaysa oo ninkaas runtii udub dhaxaad uu ahaa in lagu beegsado marka waa wax aan isla ogeyn oo aan ka wada qayb galnay dadka qaar ama dadkeedin dhaliila qaar waxay leeyihiin dawladda waxba lama ogeysiin taasoo dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay tahay xadgudub madax banaanidii dalka oo kaliya dawladdu waxay ogaatay ayaa tilmaamaya kadib markii weerarka uu dhacay taas oo tusaale loo soo qaadanayo in xitaa aad ogaan weyseen dilkiisa oo kadib markii Mareykanku ku dhawaaqay aad saxaafaddu soo bandhigteen ma taas xaqiiq ma aha waan ogeyn laakiin markii weerarku uu dhacay waa inaan isla xaqiijinaa oo la xaqiijiyaa oo war daqiiq ah ama xog daqiiq ah la helaa ugu dambeyntii marka waxaad soo hadal qaaday in ciidamada AMISOM weligood aysan joogeen Soomaaliya oo ciidamadii dawladdana sidii loo dhisi lahaa loo tayeyn lahaa arrin ku saabsan halkan aad u timaadeen goorma ayay kula muuqataa in ciidamadu awood ay u yeelan doonaan inay amniga la wareegaan oo kuwa AMISOM ama qaramada midoobay ay meesha ka baxaan waan rabnaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ciidamadeenu awood u yeeshaan laakiin wax badan baa ka sokeeya waxaa ka sokeeya in hawlihii loo baahnaa in ciidamadaas ay tayeysmaadaan in ciidamadii
la isku dhafo in ciidamadii dib loo tababaro in ciidamadii la qalabeeyo in logisticska iyo waxay u baahan yihiin oo dhan ay iyo mushaarooyinkoodii iyo meesha la dhigo waxaas waa waxaynu ka shaqaynayno markaynu isku dubaridnaan inuu ka jawaabi karnaa su-aasha waqti intee la eg ayaad qiyaasaysaan waa rajaynaynaa in sanooyinka soo socda ay noqoto sanad 2 sano waxaan oran doonaa markii aanu shirkaan dhamayno